xogta dahsoon ma doonaysaa inaad ogaato arrimaha la xiriira ammaanka dhaqaalaha iyo guud ahaan siyaasadda Soomaalida iyo caalamkaba haddii jawaabtu haa tahay la soco barnaamijka xogta dahsoon barnaamijkan oo lagu falanqeyn doono arrimaha dahsoon waxaan ku marti qaadi doonaa dad aqoon iyo khibrad u leh mawduuca markaasi laga doodayo nidaamka dhan oo rabno inaan systemka dawladda ku dhisno inuu yahay nidaam musuqmaasuq ah ma ahan doorashada kaliya oo baarlamaanka la dooranayo macna systemka dhan ayaa wuxuu ku socdaa musuqmaasuq barnaamijka waxa uu baxayaa habeen kasta oo Arbaca xilliga saacadda UK ay tahay 9 fiidnimo hamogaan barnaamijka xogta dahsoon kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xogta dahsoon habeen kasta studio telefishinka Somali Cable magaalada London ee dalka Britain barnaamijka caawa waxaan ku eegi doonaa isbedelada lagu sameeyay golaha wasiirada Soomaaliya xubnaha cusub lagu soo kordhiyay kuwa xilka laga qaaday maxay soo kordhin kartaa maxay saarintan salka ku haysaa waa maxay ujeedada siyaasadeed maxay ka bedeli kartaa mucaaradada iyo sidoo kale dhibaatooyinka dhex jira dawladda Soomaaliya iyo qoliyaha mucaaradka dawladda ku kacsan barnaamijka caawa waxay la falanqeynayaan halkan la jooga ambassador Cabdirashiid Aadan Seed iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Roble ula yare kusoo dhawaada barnaamijka labadiinaba waa ku dhowna barnaamijka labadii bil ee ugu dambeysay dawladda Soomaaliya waxaa hareeyay jahwareer siyaasadeed iyo mucaarado xoog leh oo ka imaanaysay qoliyaha dawladda ku kacsan kuwaas oo dhalisan hanaanka dawladda ay wax wado afartii bisha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu xilka ka qaaday 3 wasiir oo ka tirsan golaha wasiirada hore waxa isku casilay 2 wasiir wasiirka gaashaandhigga wasiirka gargaarka iyo wasiir kale sidoo kale waxay maraysaa tiradii waa xubnihii waa 6 wasiir muddada dawladda dhisnayd xilka ka taga iyadoo hore loo dilay ama uu dhintay loo naxariistay wasiirka ka tirsan dawladda Soomaaliya haddaba xilka qaadistan waxaa ku dhawaaqay oo sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Injineer Yariso wala ila fiirsada marka hore qaabkii uu dhacday xilka qaadistaas iyo magacaabista xubnaha cusub ee wasiirada oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu xilkii ka qaaday 3 wasiir isla markaana magacaabay 3 wasiir oo cusub ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa 3 wasiir xilkii ka qaaday isla markaana 3 wasiir oo cusub uu magacaabay xilkaas banaanaaday ra'iisul wasaaraha ayaa ugu horeyn xilkii ay hayeen ka qaaday wasiirada kala ah mudane Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Marwo Qadre Axmed Ducaale wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha iyo mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa wareegto uu soo saaray oo ku magacaabay 3 wasiir oo cusub oo buuxinaya xilalka banaanaaday ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 97 farqadiisa 3aad ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay qodobka 97 farqadiisa 2 xarfaha a iyo ba ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay qodobka 100aad xarfaha a ba iyo ca ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaal xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu garwaaqsaday baahida loo qabo magacaabidda wasiirka ganacsiga iyo warshadaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wuxuu magacaabay qodob koowaad mudane Maxamed Cabdi Xayir Maaree waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bisha 1 2018 sidoo kale mudane Cabdi Maxamed Sabriye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 Janaayo 2018 sidoo kale Danjire Axmed Ciise Cawad waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bisha 1 2018 wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilalkooda qodobka 3aad magacaabidani waxay dhaqan galaysaa marka uu saxiixay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo uu saxiixay waxaana lagu soo saaraya faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
intaas ayay ku eg tahay warkii degdeg ahaa ee ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. waa mahadsantahay. waxaa wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya Injineer Yariso oo markaasi ka hadlayay magacaabista iyo xilka qaadista wasiirada. Todobadii isla bishan ayaa xubnaha joogtada ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa la horgeeyay golaha wasiirada cusub oo halkaasi lagu dhaariyay. xubnaha cusub ee wasiirada oo tiradooda 3 uma baahna in baarlamaanku ansixiyo, hase ahaatee waxay u baahan yihiin in la dhaariyo oo ay gurjoog ka ahaadaan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. haddaba ila daawada sidii u dhacday dhaartaasi oo yahay warbixintan ka soo diray. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay. kulanka kala fadhiga toddobaad ee guddiga joogtada ah oo si rasmi ah ugu qabsoomay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho, isla markaasina uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa wuxuu ajandihiisu ahaa dhaarinta 3 wasiiro oo cusub oo dhawaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. xildhibaan Sheekh Cabdullaahi Shaacir oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa mar qora si wada jir ah u dhaariyay wasiirada cusub. waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala. wabilaahi tawfiiq. intaa kadib xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Guux ayaa warbaahinta la hadlay isagoona ka warbixiyay muhiimadda ajandaha kala fadhiga toddobaad ee guddiga joogtada ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta guddiga joogtada kala fadhigiisii toddobaad ee aan caadi ahayn ayaa ka qabsoomay Villa Hargeysa oo ah guriga guddiyada, waxaana gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Professor Jawaari iyo gudoomiyaha koowaad mudane Cabdiwali ayaa gudoominayay. waxaana ajanduhu ahaa oo hawsha fadhiga gaarka loo qabtay waxay ahayd dhaarinta 3 wasiir ee cusub ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya. 3 wasiir oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa yimi waana la dhaariyay. 3 wasiir la dhaariyay waxa weeye wasiirka ganacsiga, wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha dibadda waa la dhaariyay. wixii qaraarana waa loo sameeyay. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka, magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. waa tahay waxaan soo laaban doonaa khudbadihii ay jeediyeen wasiiradkii hore ee arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasaare ku-xigeenka dalka. Roble, marka hore maxaa is leedahay way dhalisay magacaabistan iyo xilka qaadistan degdega ah? bismillahi raxmaan raxiim. xilka qaadista oo lagu sameeyey 3 wasiir ee degdega ah, dadkoo dhan waxa ay la socdaan in wadanka uu ku jiray xiisad ay ka jirtay xiisad siyaasadeed. xiisadaas siyaasadeedna waxay dhalisay in maxaa la yiraahdaa ay dowladdu ku qasabtay in ay wax ka bedesho golaha wasiirada. taas ayaa sabab u ah xiisadii arrimaha gudaha ka taagneed, wadanka gudihiisa ka taagneed, ha noqoto labadii dhacdo ee waaweynaa iyo maaragtay mucaaradada magaalada macnaha dowladda kasoo horjeedka laga soo horjeedo iyo xiisada noocaas oo kale oo siyaasadeed. markii xiisad siyaasadeed oo kale oo sidaas oo kale dhacdo waxaa qasaba in dowladdu ay wax ka bedesho ama qaab xal ay keento. marka xalkii ayaad ka noqday. marka Ambassador Said, maxaa is leedahay way keentay arrintan isbedelkan in habeen quraa hal mar la sameeyo isbedelkan leeg wali wasaaradii muhiimka ah arrimihii gudaha iyo wasaaradda arrimaha xilka laga qaado? waa mahadsantahay walaal. runtii arrintan arrin ku siyaasadda Soomaaliya maaha, ama isbedelada had iyo jeer ku yimaada dowlad ka dhisan wadan sida Soomaaliya oo kale. Soomaaliyana waxaan ogsoonahay in dowladda hadda u dhisan ee madaxda ku yahay President Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ilaa iyo 9 bilood iyo 10 bilood ay jireen ba runtii howlaha waaweyn ee wadanka ay ka qabteen oo dhinac walba saameyn ku yeeshay guda iyo dibadba. sidaa darteed waa iska caadi dowlad markay jirto in dowladdaas golaheeda fulinta ama la isku bedelo ama qaar laga qaado shaqadii oo qaar kale la keeno. waxay la tahay sanadka cusub asagoo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay rajeynayaan in siyaasado cusub oo wadanka lagu dardargelinayo howlaha u yaala ee hor yaala
iyadoo laga qaadanayo tilmaam in ay keentay in bal wasaaradahan oo muhiim ah loo magacaabo wasiiro cusub, wasiiradaas oo dee niman waayo aragna u ah dowladda iyo dadka soomaaliduna ka rajeynayaan inay shaqo xoog leh ka qabteen. kuwii hore u dhowdana howlo ay dalka usoo qabteen ayaa jiro aada u wanaagsan. hadda laftigeedana waxaan rajeynaynaa in ay maadaama ay aqoon-yahano soomaaliyeed ahaayeen, iyaga qudhoodu ay qaranka soomaaliyeed howlaha loo hayo inay qayb ka geli doonaan, qayb kastaba ha ahaatee oo dowladdu ay u garan doonto. laakiin umuurta muhiimka leh waxay tahay inaan garanno in qaranka soomaalidu markasta u baahan yahay in wixii dib reform loo sameeyo oo la eego wixii laga soo gudbay. waana waxaan annaga qura aan ahayn ee haddii jeeraa ka dhasha dowladaha dalkan Britain aan ku noolahay. shalay iyo doraadii ay ahayd markii ra-iisul wasaaraha waddanka Britain Mrs May iyadoo weliba wax ka yar sanad joogtaa xukunka ay isku shaandhayn wasiirada ka qaaday kuwa cusubna abuurtay. Soomaaliyaba iska daayo xaaladda ay ku jirto. Roble waxaa sheegtay in isbedelkan ay dowladda ku qasabtay dana siyaasadeed ama mucaarada jirto. qalaasaha mucaaradka iyo dowladda ka dhex jira maxay arrintan ka bedeli kartaa? maxay soo kordhin kartaa? wasiir xilka laga qaaday midka la soo magacaabay maxay ka bedeli kartaa? bismillah, marka ugu horeysa horta hore xilka qaadistii golaha wasiirada lagu sameeyey iyo wasiirada lagu sameeyeyba ma aanay ahayn maaragtay mid caadi ah oo aan dhihi karno ama wasiir ayaa xilkii gudan waayey ama si kale ku dhacday. waxay ku dhacday arrin siyaasadeed oo taagan oo la isku haysto oo dhibaato ka taagan tahay ayay dowladdu damcday in xal ay uga hesho arrintan. marka saameyn ayay samaysay markii labadii wasiiradii ugu muhiimsanaa golaha wasiirada, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaragtay arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha gudaha, labadaas wasiir ka qaadista xilkooda ma dhihi karo wasiirka arrimaha gudaha xilka qaadistiisa waxaa keenay culays ka yimid siyaasaddii waddanka ka jirtay ama dhibaatadii waddanka ka jirto aanu wada ognahay dowladda iyo mucaaradka isku hayeen. marka waxaa la arkay in ay muhiim tahay in jagada wasiirka arrimaha dibadda uu hayo ninka laga qaaday Yuusuf uu hayay in laga qaado si xiisadaani la keenana qof kale uu bedelo. Yuusuf waa wasiirka arrimaha dibadda maxay muhiim ugu tahay? muxuu Yuusuf wasiirka amniga ma ahan, wasiirka arrimaha gudaha ma ahan? sidee buu dowladda uga neefin karaa dhibaatooyinka aad sheegtay ee jira mucaaradka dhex jiray qalalaasay xagga amniga wax la xiriira iyo mucaaradka ku cagsan maxaa iyo wasaaradda arrimaha dibadda maxaa iska quseeyay? muxuu muhiim ugu tahay Yuusuf meesha laga qaado wasaaradda arrimaha dibadda? horta runtii waxaa meesha keenay xilka qaadista wax kale maaha shaqo la gudan waayo oo wasiirka arrimaha gudaha dibadda gudan waaye ama wax kale maaha. waxa meesha keenay waxaa waaye wasiirka arrimaha gudaha arrimaha dibadda dadka uu ka soo jeedo iyo waxaa isku kacsan dowladdii oo xiisada taagan ayaaba meesha ay ka dhalatay. marka xubintii ay ku lahaayeen dadkii mucaaradka ninkii qolooyinka mucaaradka ahaa dadkii ay ku lahaayeen xubintii ay ku lahaayeen ayaa waxaa qasab noqotay in qof kale ama jago kale lagu bedelo oo ah arrimaha gudaha oo xiisada ugu weyn ay ka taagan tahay arrimaha dhibaatada arrimaha gudaha. maasan tahay ambassador su'aalan ku diinaya adigu waxay tahay raggan hadda la magacaabay wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga maxay laga filayaa? maxay soo kordhin karaan oo dowladda hadda jirta sanadkan ay ku soo kordhin karaan oo isbeddel ay keeni karaan? sideedaba markii wasiiro cusub la keeno oo sida hadda iminka dhacday oo kale waxaa la rajeynayaa oo dowladda aan ka qowdareynaynaa oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu rajeynayaan inay labalaabaan hawshii ay wasiiradii hore hayeen. weliba wasaaradahan maadaama ay muhiim u yihiin qaranka Soomaaliyeed sida uu walaalkay Cabdi ka sheegayna wasaaradda arrimaha guduhu xasilinta waddanka muhiim bay ka tahay. waa wasaarad muhiim u ah mana oran karayo beel gaara ama dad gaara lagu qancinayo. wasiirka arrimaha dibadda arrimaha guduhu Mr Sabriya waa nin aan ugu aqaan oo aqoontiisu gaarsiisan tahay wax weyn oo kusoo korin kara guud ahaan baa arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya ka socda. waddankana dhinac marka laga fiirsho laba oran karayo hadda waxaa jira dowlad iyo mucaarad laba oran karayo. shakhsiyaad dhaliilo jeedinaya waa iska jiraan laakiin heer maanan gaarin loo kala saftay Soomaaliya xisbi mucaarada iyo xisbi mu'ayid oo talada dalka Soomaaliya haya. marka laba oran karo qaranka Soomaalida iyo dowladnimada Soomaaliya
meel dheer baa laga keenay welina tartiib bay ku socotaa waxaa loo wada baahan yahay gidigeen gacnaha inaan iska qabsano oo garbaha isqabsano oo dowladda tan iminka ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ku tilmaameen inaguna aragno waxa la yidhaahdo waa dowladdii shacabka oo shacabku inay la saftaan oo markaa ay ku shaqeeyaan madaxda waddanka joogtaa rabitaanka dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed marka madaxda tan ama wasiiradan la doortayna waa dad karti u leh bal misalan baa waxaan aqaanaa anigu sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda oo imika la magacaabay Mr. Ahmed Awad runtii waa nin diblomaasi ahaan jiray ururada caalamiga ka soo shaqeeyay dowladii TNG oo waqtigii Cabdi Qaasim xitaa xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqo ka soo qabtay waa nin waddanka ugu weyn oo dunida ilaahay baa weyn imika ka soo ahaa safiir siyaasadda amuuraha dibadda ee qaranka Soomaaliyeedna u masali karaya ummadda Soomaaliyeed waxna uga qaban karaa waxaana jirta siyaasadda amuuraha dibadda iyo tan gudaha ee qaran leeyahay markii waddan jiro sida Soomaaliya oo kale waa wax isku xiran gudahana waa xasilintii waddanka iyo waxyaabihii dhan oo ka socday dibadduna waxay muraayadii u ahaanaysaa waddanka oo bidaaminaysay kolba waddankaas siduu u yahay dhaqaalihiisa nabadgelyadiisa horumarkiisa sida dadku dib u heshiisiin ugu baahan yahay marka ra-iisul wasaare Khayre tallaabada uu ku qaaday madaxweynuhuna ku ayidsan yahay president Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa weeyaan in la dardar geliyo siyaasad aad u socota oo sanadkan 2018 laga rajeynayo dawladdu inay u qaado dhinacyo badan sida dib u heshiisiinta abuuritaankii ciidamadii qaranka Soomaaliyeed in dadka Soomaaliyeed dhexgalkiisii ana ka muuqato hadda in ra-iisul wasaaruhu u diray wasiiro badan waddanka goboladiisa madaxweynihii jamhuuriyadda uu bilaabay His Excellency President Farmaajo sadaalada sida Puntland haatan sadaalka lagu dirsaday ka socda gobollo kalena uu ku tagayo sida Jubbaland oo kale horana iyo galmudug oo kale marka arrimahaas oo dhan baa waxay yihiin arrimaha siyaasadda dalka lagu doonayo 2018 wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Sajuuxa markii xilka uu wareejinayay khudbad ayuu ka jeediyay madashii khudbadaasi waxa uu sheegay in Soomaaliya inay jirin qolo gaar u leh ama cid siyaasadda Soomaaliya gaar isku xidhi karto lana baahan yahay in laga wada shaqeeyo wasiirku waxa soo halqaaday arrimaha ka mid yihiin in Soomaaliya ay ka jirto oo ka jira siyaasi dalnay ah iyo wadaad sida uu sheegay dalnay oo qofkii ka hor yimaada wadaad kala gaalaysiya qofkii siyaasi ka hor yimaada ku tilmaama qaran dumis bal la fiirsado khudbadaasi mudane ra'iisul wasaare mudane madaxweyne dalkani sidiisaba maanta waa lagu yahay dalkani waa lagu yahay waana dhaaleeyahay dadkiisuna siyaasad ahaan iyo amni ahaanba waa dayacan yihiin meel fogna waa laga yimi dhaqaale ahaan nasabool baa nahay kalsoonida shacabkuna way kala daadsan tahay oo kalsooni xumo siyaasadeed ayaa jirta dalkani wuxuu u baahan yahay marka isku wad iyo isu dulqaadasho oo ah furaha u ah in meesha la joogo hore looga sii socdo si taa loo gaaro qof kaliya ama koox kaliya ma noqon karto cidda iyadu arrintaa dheeraadhisa wuxuu u baahnaan doonaa marka talabadaan koox kaliya ma noqon doonto ama ma aha cidda soo aragtay ama og meesha loo guurayo oo meeshaa looga guurayo arrimahaas si loo gaaro waxaa loo baahan yahay marka in dalkaani uu yeesho dood caafimaad oo dhab ah xasaasi ah mararka qaarkood xanuun badan laakiin aan qofaysnayn aan siyaasadaysnayn aan danaysnayn laakiin soomaaliyeysan ama berriyeysan waxaan ujeedaa mustaqbalka ku wajahan taa ayaa loo baahan yahay taas ayaana caafimaadka ku jiraa labada doodood oo kala gedisan iyo afraarta kala gedisan dhexdooda ayaana xalka soomaalida ku jira intii burburku dhacay ama aynu ku fakacaynay ama sanadihii ugu dambeeyey waxa ugu xun oo ina ku dhacay labada waxood waa wadaadka ka fikir duwan ku dhufta shabadda cadaabta oo yiraahda helnaa baata ama waa madax ninka ka fikir duwan ku dhufata shabadda mucaaradnimada ama qarandumiska intaa kadib intaas taasna
tahay kaasi waxaa wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya haddaba ra-iisul wasaarka dalka Soomaaliya iyo goobtaasi jooga waxa uu sheegay inaysan jirin caburin siyaasadeed oo dowladda imika jirta ay hayso isla markaana qofku xor yahay fikirka siyaasadeed inay jirin in dowladdu cidda ka fikirka duwan ay ku tilmaanto qaran dumis baltaana ila daawada ee dalka ka jirta dulqaadkeeda iyo isu dulqaadashadeeda iyo maan rag waa mudacaya afkii waa mid adiguna aad hormuud u ahayd aad ka soo shaqaysay intii wasiirka arrimaha gudaha aad ahaydna aad ka shaqaysay ma jirto caburin siyaasadeed oo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisuba ay keeneen kana shaqeeyaan laakiin waxay ka shaqeeyaan hormuudna u yihiin xukuumadduna tahay isu dulqaadasho siyaasadeed iyo fikirka siyaasiga ah inaan la iskula coloobin fikirka siyaasiga ah la waxweynka Soomaaliya kaasi aha Cabdiraxmaan Roble oo yare hadalka iyo khudbadda wasiirka arrimaha gudaha Juxa maxaa kaga baxay halkaas maxaa ka dhadhamay marka ugu horeysa khudbadda ujeediyay Juxa waxay si cad uga hadlaysay marxaladda la marayo wuxuu sheegay wadanku inuu marayo meel maaragtay qatara in la wada hadlo ay fiican tahay in wax walba la isku soo jiiday wanaagsan yihiin ay jirin koox ayadu dhinac in isxijiso ay talada dalka iyo go'aanka masiirka wadanka ayada kaliya go'aamiso kooxdii ka soo horjeedana ay maaragtay shaabado la daba gasho waxa meesha ka cad oo maaragtay wasiir Juxa uu sheegay waa arinta dhabta ah ee jirta marka hore waxaan soo qaadanayaa xilka qaadistii saddexda wasiir iyo khudbadihii ay jeediyeen hadda khudbadii waxaan fiirsanay wasiirka arrimaha gudaha iyo waxaan fiirsanay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii oo arrintii maaragtay nahayo si kale uga hadlaya laakiin xaqiiqada jirta waxay tahay in wadanka ay ka jirto maaragtay khilaaf uu jiro arrintii isbedelkii hadda la sameeyena uu ku salaysnaa sidiisaba xalin ay u arkeen dowladdu ay u aragto in ay wax ku xalli karaan khilaafka waxa ay leedahay xukuumadda waxaa ka sii daran khilaaf ka jira maya waxaa ka sii darantaa waxaa taa ka sii daran oo aynan hore u sheegin xilka qaadista habka loo maray iyo qaabka uu ra'iisul wasaaruhu u maray inay ahayd mid aanan weli aanan Soomaaliya soo marin arrin uguba waxay cadeynay marka wasiirka arrimaha gudaha oo asagoo shaqadiisa gudanaya xilka qaadis aad u fool lagu sameeyay xilka qaadis aad u fool noo sharax xilka qaadis fool xun maxay tahay macnaheedu waxay tahay asaga oo qaranka u shaqeynaya oo aan wax dambi ah qaranka ka gelin oo aanan maaragtay shaqadiisa ka soo bixi weynin in habeen maaragtay uu ka maqlo asaga oo weli shaqo qaran ku jira in uu raadiyaha ka maqlo xilkii waa laga qaaday maxaa jira soo dama gelin qofkan xilka loo magacaabay miyaan laga qaadi karin dambi ma loo dhig sidii loogu sheegay markii la magacaabayay ayay ahayd in loogu sheego marka xilka laga qaaday haddii kale waxay noqonaysaa taas nin kasta oo maanta wasiira ama nin kasta oo maanta xil haya waxaa gelaya shaki ah goorma ayaa adiguna maaragtay text message ama Facebook loogu shaqada laga fadhiisin hadalka wasiirkii hore arrimaha gudaha maxaa ka dhasan kartaa waxa uu sheegay wasiirku in siyaasadda Soomaaliya cid dad gooniyaysan u xirnaan karin oo loo baahan yahay wada tashi maxaa halkaas kaga muuqda runtii anigu nin yaqaan baan ahay Mr. Juxa Cabdi Faarax Juxa muddo dheerna waa isnaqanay kolkii shaqada laga fariisiyay ama laga wareejiyayna warku uu soo saaray waan wada maqlay oo ahaa in dee isagu awalba uu ra'iisul wasaaraha wadanku shaqada u magacaabay haddana xaq uu leeyahay ra'iisul wasaaruhu inuu ka bedelo shaqada ama ka qaado marka taa wax dhib ah oo Juxa uu ka sheegtay laba arko hadalka kan uu marka uu qofku yahay uusan xilayn oo ku hadlaya ama uu ku macnaynayo kolba xaalad jirta qof walba xuquuqdiisa iyo xaqiisa ay u leeyahay wadankeenu wadan dadka la caburiyo ma aha wadan caga jugleyn ku jira ma aha dowladda Soomaaliyana dowlad xisbi haysa gaara ma aha waa dowlad ku dhisan dib u heshiisiin iyo wixii la soo maray oo aan ogsoonahay waxay ahaayeen iyo xaaladihii laga soo gudbay laakiinse waxaa jirta waajibaad madaxda qaranka ee la doortay iyagu leeyihiin dadka la doortay qof walba ma aha Juxa ma aha Yuusuf Garaad iyo qof kala toona waxaa la doortay President Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa kaloo uu magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre
labaduba waxay ka haystaan mandate ama kalsooni weyn baarlamaanka Soomaaliya wasiirka baarlamaanka dowladda Soomaaliyeedna si aqlabiyad leh ayaa lagu ansixiyay baarlamaanka laakiin waajibaadka ra'iisul wasaaraha waxaa kamid ah inuu fire garan karo ama uu ka eri karo ama uu magacaabi karo wasiirku uu doono isagoo la tashanaya ama xeerka wadanka u yaala sharciga u yaala isagoo ku dhaqmaya taas sabab baa kolley jirta ra'iisul wasaaruhuna nooma faahfaahin laakiin sabab kastoo ay ahaataba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay inuu wasiirku rabo isagoo magacaabo isagoo ku saleynaya xaalad marka wadanka jirta xaaladda wadanka jirtana waan ogsoonahay waa ka warqabnaa wadan dowladiisu curdan tahay dowladihii hore ka duwan oo sheegatay inay tahay dowlad ku dhisan rabitaanka shacabka oo doonaysa inay dardargeliso siyaasadda waana ka wada warqabnaa in challenge ama wax la yiraahdo loolan xoog la dowladdu kula jirto ururada argagixisada ah iyo dhibaatooyinka wadanka ka jira oo dhan iyo isu keenida ummadda Soomaaliyeed marka waxaan u baahanahay inaanu garanno in wax kastoo ay dowladdu ku dhaqaaqdo in lagu garab galo madaxda qaranka Soomaaliyeed siyaasadda ay ku doonayaan in lagu horseedo waxaa kaloo jirta arrin aad ka sharqamisay oo ah arrinta tala wadaag waxaa la yiraahdaa in dadka lala tashado tala la weydiiyo go-aan la weydiiyo wax kale laakiin go-aanka kama dambaysta dadka xilka loo dhiibay ee la doortay ee fulinta iyaga berita lagula xisaabtamaya 4 sanadood oo ay xilka hayaan president Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre qofka dadka la xisaabtamaya waxa weeyaan waa iyaga marka mas'uul ka ah qarankii Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed waxa la xisaabtami kara oo markaa accountable u yihiin waa baarlamaanka inkastoo ay ku fadhiyaan iyagu rabitaankii shacabka Soomaaliyeed maasada ku salaaman doona Robles su'aalan ku weydiinaya dowladdan waxa lagu amaanaa in madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu ay si fiican uga shaqeeyaan oo wax khilaaf u saddex jira marka waxaan ka jirnay ra'iisul wasaareyaal dowladda ka horeysay ilaa saddex ra'iisul wasaare ayaa soo martay intii kasii horeysaba haddana waxaa muuqanaya halkan hadda in dowladdan sagaalka bilood dhisan 6 wasiir qaar shaqada laga ceeriyay iyo qaar iyagu ka tagay yihiin 3 taliye in la ceeriyay taliyaasha ciidamada militariga booliiska iyo nabadgudda wali ay maqan yihiin taliyaasha nabadgudda iyo booliiska marka ma dhihi karnaa waa laanta fulinta khilaaf ayaa ka dhex jira waxda fulinta xukuumadda khilaaf ayaa ka jira sabab kale in wasiiradu shaqada ka tagaan ama laga ceeriyo bismillah waa runta dowladdan 9 bilood jirta howlo badan oo la yiraahdo howlihii ay qabatay oo waaweyn jira oo taas lama inkarsana laakiin waxaa cad oo aan dah saarnayn in dowladdani madaxdeeda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dhankiisa in uu ka jiro maaragtay si ay noqotaba la talin xumo ama qaab kale ha noqoto waayo markaan fiiriyo maalintii ra'iisul wasaaraha la magacaabay ilaa iyo maanta qaladaadku maalin walbaba qaladku wuu sii badanaya waxaan aragnay agaasimayaal shaqadii laga ceeriyey aynan xaq u lahayn wasiiradu aan xaq u lahayn inay ceeriyaan macnaha nidaamkii dawliga in loo maray ay ahayd aan la marin waxaa dhacday in dad loo magacaabay jagooyin loo magacaabay ay diideen in ay xilki wareejiyaan sida aeroboortka oo kale ninka aeroboortka loo magacaabay ma ahayn ninkii dowladdu u magacowday waxay ahayd in maxaa la yiraahdaa uu xilka dhiibo wuu diiday macnaha qaladaad fara badan oo dadku meel wadanku waa wadan yar waana la isu wada jeedaa haddii qalad meel ka dhaco meesha kalena qalada ka dhacay hadda arrintan dhacdo kale ugu dambeysay 3 wasiir la bedelay karti xumo iyo shaqo xumo laguma bedelin ra'iisul wasaaruhu xaq wuxuu u leeyahay ciduu doono inuu bedeli karo laakiin wuxuu ku bedelayaa nidaamka dawliga uu ku bedelayaa nidaamka dawliga waa maxay dastuurka ayaa siinaya awood u siinaya inuu ma ku diidani laakiin ninkii aad xil ka qaaday hadduu suuqa ka maqlo macnaha waxaan ka wadaa anshaxa dowladnimaa xun marka midaan dhamaystirto midaan ah arrinkan ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare isma khilaafsan haddaysan iskhilaafsanin waa arrin u fiican wadanka u fiican laakiin arrinta saxitaanka u baahan waxay tahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu wayna arkaan intii ay joogeen qaladka ka weyn ayay sii galeen waxaa wanaagsan in ay ama fiiriyaan la taliyayaashooda maa qaldan
ma waxaa qaldan go-aan qaadashadooda qaldan ma waxaa qaldan la shaqaynta dadka ay soo culeen iyo wada shaqayntooda maa qaldan waxaa meesha ka cad marka waxaa meesha ka cad in uu jiro khilaaf hoose oo ka dhexeeya madaxda iyo dadkii ay magacaabeen inuu khilaaf jiro. ambassador su-aashii aan weydiiyey roble aan adiga si toos ku weydiiyo waxaa jirta hadda socota ilaa 6 wasiir ama qaar celiyii qaar shaqadii ka tagay taliyaasha ciidamada ma dhihi karnaa khilaaf ayaa jira laanta fulinta oo xagga xafiiska prime ministerka iyo golaha wasiirada khilaaf ayaa meesha ka socda ma dhihi karnaa aniga aragtideeda kolley muddo badan baan qaranka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya la soo shaqeynaya anigu ma arko wax khilaaf ah inuu jiro waxaan u arkaa wax kastoo la abuuro wax kastoo la dhiso dee waxun baa ka soo baxaya waxaasna inay ku adkaysato dowladdu maaha sababtaasana keenaysa waxa la yidhahdo reform in lagu sameeyo oo wax adduunka oo dhan caadi ka ah dowlad meel laga dhisay sidii ay jeclayd hadday weydo siday ka badin weydo oo ah in ay wax ka bedesho ama isku shaandhayso ama wasiirada qaar laga saaro meesha arrintana waxaan u aragnay annagu haddaan dowladda la shaqeyno ama dadka Soomaalida wax garanaya ee cilmiga dowladnimada wax ka yaqaana arrin lagu dardargelinayo hawlo badan oo dowladda soo foosaaray dhanka nabadgelyada ah dhanka dib u heshiisiinta leh dhanka ah in lagu soo dabaalo tabashada dadka qaarkood oo meelaha qaarkood dowladda ka tabanaya in la hagaajiyo hawlaha qaarkood oo dowladdu wado dowladduna ma aha dowlad erg ka soo dhacday waa dowladdii dadweynaha sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu sheegeen waxaan ogsoonahay prime ministerku had iyo jeer hale in uu goobaha la isugu tago ama ardayda ama dadka dhalinyarada ama aqoon-yahanka ama dumarka ama ciidamada in asaga iyo madaxweynuhuba ay tagaan dadweynaha lagu dhex jiro amaba shirar gaargaar oo lala yeesho kulli waxaa ka soo baxaya waxaas oo dhan ra'yiyaal kala duwan oo dowladda la siinayo marka ra'yigaas oo ka soo baxay oo dhan ayaa cirka ra'iisul wasaaruhu isagaba riyoon wuxuu ku saleeyay arrintan arrimo jira waana go-aan masiiri uu qaatay arrintaasna si hawsha u socoto su-aalaan ka weydiinaya intaad arrimasa meeshaas dad badan ayaa aaminsan in talada ay dad fara kutay soo xiran tahay oo lala maamulayo madaxweynaha ra'iisul wasaarihi xafiiskii nin jeclaysi meesha ka jiro oo qofkii ka hor yimaada siyaasadda sida hadda muuqataba ka muuqataba qoraalkiisu biraad uu qoray inuu diiday inuu ku dhex milmo siyaasad aan quseyn oo beeshiisa iyo dowladda ka dhex jirtay xukuumadda marka ma dhihi karnaa in wasiirada lagu riixayo howl aan shaqadooda ahayn inay qabtaan haddii diidana shaqada laga ceelinayo dowladdan waa dowlad dib u heshiisiin waxaa kaloo jirta oo inaan caddeyno loo baahan yahay talada dalka Soomaaliya dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan ma dhex taalo talada ragga ku talinaya rag iyo dumarka talinaya waxay ku talinayaan tabashada dadweynaha Soomaaliyeed iyaga go'aanka iska leh iyaga la siiyay mandate iyaga la xisaabtamaya baarlamaanka la xisaabtamay ummadda Soomaaliyeed ku sugaysaa dowladnimo lagu wado waxa la yiraahdaa wish wash laba lacbalayn ku jirto dowladnimo waxay u baahan tahay adag iyo go'aan qaadasho adag waxaan rajaynaynaa dowladda tan maadaama ay sheegtay ama ay tahayba dowlad ku dhisan rabitaanka dadweynaha oo tijaabadii la soo maray ama ku meel gaarka ahayd ama dowladdii u dambeysay president xasan sheekh maxamuud iyo isbedeladii laftigooda ay sameeyeen oo lagu gaaray dowladdana inay meesha ka sii wado dowladnimada Soomaaliyeedna sida madaxweynaha president maxamed cabdullaahi farmaajo uu sheegay maaha wax maalin kaliya bilaamaya soconaya ama meel ka soo dhacay waa wax u baahan maalinba wax in lagu daro wax ku soo kordhaan wixii khaldama la saxo labalaha in khaladna imaanayo oo maaragtay sidii waxaan iskan ahaanaynaa malaayga oo kale waa khalad waa imaanaya khaladkana waxaa keenaya hawsha lagu jiro dowladda loo hayo ayaa khalad ka imaanaya marka khaladkii in lagu adkaysto waxaa ka wanaagsan in la saxo oo hore loo socdo Soomaaliyana loo rajeeyo inay dhanka wanaagsan qaadato oo howlo badan oo dalka maanta hor yaala haddaanu Soomaalinahay waxaa loo baahan yahay sida madaxda dalku ay sheegeen in dowladda la garab qabo oo markaas inagoo isku duuban oo hal ah aanu asaageen la tartano si qaramada kale u gaadho aad baan wasanta wasiirada aan kala qaadno maadaama aad tahay nin ambassador waxaan ku siin doonaa wasiirka arrimaha dibadda roble adaan ku hormaro wasiirka arrimaha gudaha maxay tahay shaqada hortaalla ee hadda looga fadhiyo inuu sameeyo ka horta marka ugu horeyso wasiirka arrimaha gudaha cusub
nin u leh aqoon macnaha nin aqoontiisu dhisan tahay way araga laakiin aan horey wasiir usoo noqon waayo laakiin waxaan ognahay in uu maaragtay nin u leh karti arrintaas inuu yahay holaha hor yaallo waa howlo culculus waxaan uga horeeyo uuna hadda bilaabay inuu la kulmo dadkii loo arkeeyey in ay maaragtay kasoo horjeedaan ama dowladda ay mucaarid ku yihiin waxaa jira xildhibaano badan waxaa jira maaragtay dadaan xildhibaano ahayn oo kasoo horjeeda ama aragti kala ka qaba qaabka maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu siyaasadda ay ku dhaqmayaan iyo qaabka wax maamulayaan fartana ku taagaya meel walba oo qaladi ka jiro inta badan waxaa dhici karta inay sax tahay laakiin arrintaasi waxaa loo arkay waa la dhibsaday dowladdu way dhibsatay marka wasiirkan arrimaha gudaha ee cusub wuxuu keeni karaa aniga aragtidayda wuxuuna leeyahay sida iga muuqata inuu isu keeno dadka kale ra'yi duwan oo dowladda kasoo horjeeda inuu maaragtay dhegeysto ra'yigooda waxaadna moodaa dadka dowladda mucaaradka ku ah ama kasoo horjeeda xildhibaanada u badan in arrintaas ay ka dhalatay isdhegeysi la-aan ka timid dhinaca dowladda sida juxa uu sheegay in kooxi ay isku aragto in ay iyada go-aamin karto masiirka dalka marka ninkan wasiirka arrimaha gudaha cusub waxaa hor yaallo inuu isu soo dhoweeyo dadka maaragtay siyaasiyiinta ah iyo dowladda inuu arrimaha gobolada federaalka iyo maxalla dib heshiisiinta arrimahaas oo dhan inuu galo arrimo badan oo dhib badan ayaa jira oo wasiirka arrimaha gudaha hor yaallo oo juxa in badan uu ka sheekeeyey kana hadlay wasiirkan arrimaha gudaha cusubna ay u taallo inuu qabto laakiin waxaa muhiimaddu tahay dhanka dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo aada moodid in ay ka muuqato ma aha dhaliil aniga aan iska alifay waxaa ka muuqata dhaliil ah waayo aragnimo yari dhinaca dowladnimada waayo qaladaadka ay galeen markaa dib u fiirisid waxay ahayd wax inay galeen aysan ahayn oo ay maaragtay ka fogaan kareen balse way dhacday laakiin waxaa la rabaa haddii hadda ninkan wasiirka arrimaha gudaha ay soo xuleen dowladdu ay soo xushay ama ra-iisul wasaaruhu soo xulay waxaan qabaa inuu noqon karo nin arrimahaas wax ka xadhi sida wasiirka kale oo maaragta wasiirada kale oo soo aad baan maasanta waqtiga guddi gunaadka soo gaarnay ambassador siinaya wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya dhibaato badan ay agdunasada ka haysato ognahay xaaladda qaliijka meel halis ay maraysaa khilaafkeeda Soomaaliya saameyn badan ay ku yeeshay oo waxyaabo aan iska ma la qarin karo saameynta Imaaraadka Qatar Masar Turkiga dhinaciisa Soomaaliya jooga maxaa hor yaala wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ay tahay inuu sameeyo waxaan rabaa inaan halkan ka sheego inaad dadka Soomaalida ee dhageysanayana ogaadaan wasaaradda arrimaha dibadeed iyo wasaarad amur gudaheed iyo wasaarad kala toona go-aan gaara oo ayagu leeyihiin waa collective waxa la yiraahdo wadaag wadareed madaxda qaranka oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxda ka yahay ra-iisul wasaaruhuna golaha wadaagga ee wasiirada uu horseed ka yahay waxaa la go-aankaas ayaa wasiirada ama wasiirka arrimaha gudaha ha ahaado ama wasiirka arrimaha dibadda ha ahaado ay ku shaqeeyaan taasay ka turjumaan oo wasaaradda arrimaha dibadda hadda aad tilmaantayna mudane cawad oo hadda la doortay ama la magacaabay waxaan rajaynayaa in uu noqdo fuliyihii kolba go-aanka dowladda ay uu madaxda ka yahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo siyaasadda ay ku shaqeynayeen ayuu yahay waa number one diblomaadkii u sarreeyey waxa uu nasiib ku leeyahay mudane cawad in dalka soomaaliya uu leeyahay diblomaasiyiin khibrad xoog leh oo muddo dheer qaranka soomaaliya usoo shaqeynayay gaaraan ilaa iyo xilligii burburkii oo aqoontaa gaarkaa leh oo gacan siin karaya wasiirka arrimaha dibadda arrimaha ka sharqamisay sida arrinta golofka oo kale dowladda soomaaliya go-aan cad bay ka qaadatay oo ah in walaalaha carbeed ay arrimahooda nabad ku dhameeyaan iyaguna ma dhexgelayaan waayo aragnimadii dagaaladii sokeeyey iyo dhibaatadii dadka soomaalida soo marayna soomaaliya waxay siisay gacan adag ma qabo in madaxda qaranku aanay waayo arag ahayn ma qabo in madaxda kale oo ka hooseysa inaanay waayo arag ahayn dowladnimaduna ma aha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda dowladnimadu waa dowlad
waa shaqaalaha dalka oo agaasimayaasha leh oo kuwa ka hooseeya leh marka waa arrin kulligeed isku xiran sharanjarta iyo silsilada isku xiran ayaa loo baahan yahay qaranka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedna ay dawladnimadooda iyo qarannimadooda ay daafacaan si aan ummadaha kale uga mid aad baa mahadsan tahay daawadayaal barnaamijka xafida soon intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijka saarista waxa gacan geystay Maxamed Yare barnaamijka waxaa kala qayb qaatay ambassador Cabdirashiid Aadan Seed iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Roble oo dhamaantiin isku duunaxdan leenahay sida iyo nabadgelyo xogta dahsoon ma doonaysaa inaad ogaato arrimaha la xiriira ammaanka dhaqaalaha iyo guud ahaan siyaasadda Soomaalida iyo caalamkaba haddii jawaabtu haa tahay la soco barnaamijka xogta dahsoon barnaamijkan oo lagu falanqeyn doono arrimaha dahsoon waxaan ku martiqaadi doonaa dad aqoon iyo khibrad u leh mawduuca markaasi laga doodayo nidaamka dhan oon rabno inaan systemka dawladda ku dhisno inuu yahay nidaam musuqmaasuq ah ma ahan doorashada kaliya oo baarlamaanka la dooranayo macna systemka dhan ayaa wuxuu ku socdaa musuqmaasuq barnaamijka waxa uu baxayaa habeen kasta oo Arbaca xilliga saacadda UK ay tahay 9 fiidnimo ha moogaan barnaamijka xogta dahsoon